wararkii ugu dambeeyay furmaha hore ciidamadii abid ugu tirada badnaa ayaa halkaasi lagu daabulaya ubka culus ayaa gaadhay furmaha hore taliyaha guud ee ciidanka Somaliland ninka lagu magacaabo nimcaan Yuusuf Gahnuug ayaa soo gaadhay iyo taliyaha lugta ee ciidanka Somaliland iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Somaliland ayaa ayaguna furmaha hore soo gaadhay waxaad moodaa inay si weyn iskaga baraanjeynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii iyo gaashaandhigii iyo sirdoonkii oo dhammaan ayaguna goobta jooga xaalku ma sahlana xogaha ka soo baxay halkaas waxay sheegayaan inay waftiga uu madaxweynuhu hogaaminayo afar bari ka badan inay joogi doonaan si loo tijaabiyo bal Somaliland qamaamaysa ee meel baan qabsanayna xuduudahan soo xidhayna gantaalada iyo madaafiican weligood la arag baan garaacayna ayaa fursad la siinaya bal in ay wacdara dhigaan iyo inaan meesha waxba lagu haynin tijaaba ayaa socota waan dul istaagaynaa iyadana sidoo waxaan dul istaagaynaa Boorama degmada loo yaqaan Quljeed duleedkeeda 2 qofna way ku dhimatay 3 qofna way ku dhaawacmeen gobolkaasi wuxuu wajahayaa waa gobolka Awdale fadqalalo weyn buu wajahayaa jamhadihiina miinooyin buu wadooyin ku aasayaan ayagoo u aasay gaadiidka ciidanka Somaliland yaa aasaya jamhadda dib u xoreynta Awdal State ba aasaysa sababtoo dhulkaasi horeyna ururasiya dagaalyahana uma galin yaa aasay laba waa midun ama ciidanka Somaliland ba aasay oo say shacabka beesh samaroon loo dhibaateeyo ama waxa aasay jamhadaha dagaalka ku jira oo rabay ayagu in ciidanka Somaliland ku waxyeeloobaan halka hadda wax ku dhinteen waxa la sheegayaa in xataa hadii la dhilaa Ciise aas oo shacabkan u aasay samaroon hadii la Ciise ma soo gaari karaan malay halkaas oo suurtagal ma inay niman waxa si wata ay meelahaas soo gaaraan marka qodobadaas ay faaqadayna khiyaaray iyo dhawaaq Cabdiraxmaan kama maqnaan doonay barnaamij si shir garay meel fogna gaarsiya like waa muhiim muuqaalka ay fogeynaysa idinkuna aad iyo aad ayadu mahadsantiin aynu gudo galo waanu soo laaban furinta hore iyo dabaabaadka gaashaaman ee buux dhaafiyay iyo xaaladda oo cirka isku sii shareeraysa waana kala bixi xaqiiqda dhabta halkaasi ama waa laga sii dhaqaaqi dhan baa loo dhaqaaqi ama laascaanood loo dhaqaaqi ama Hargeysa loo dhaqaaqaya hawshu way adag tahay waanu soo laaban laakiin waxaan rabaa inaan u tacsiyo dadka halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba beesha samaroon Allah u naxariista ayaana labada qof ku dhimatay qaraxa iyo saddexda kale ku dhaawacantay degmada Quljeed sidoo ogsoonahay gobolkaasi Awdal wuxuu wajahayaa arrin khatar ah ayuu wajahayaa waa say ugu bilaabatay baad moodaa waa meel lagu hardami doono waa meel wadooyinka dhan la goyn doono waa meel maartay la soo aasi doono waxyaabaha qarxa dadkan waa dad rayida labada qole ay hayeen midna ma laakiin durba shacabkii ayay u bilaabatay hadaba wadooyinkii hada gaari baa la egtay gaarigaasi jid buu maray jidkan yaa ku had jidkan weli gaarigu mari jiray gaadiidku mari jireen nabad bay ahayd lagama aqoonin waxaas waxay ku cadaynaysaa inay arxan darradii bilaabatay nafl caarnimadii inay bilaabatay dhibaatayntii inay bilaabatay nimanka jidka ku aasay waa laba qolo mid ama waa militariga Somaliland oo raba in ay ayagu tusaalahan halka way mareen way aasayaan waxay u aasayeen inuu dadku dhibaato inay dhahan jamhadaha ayaa halkaas jooga oo jamhada ayaa ka dambeysay oo la dhaho wariyada ninka aasay soo dhaxsaar albaalihi ay kala jabaan sababtoo dadkan beel bay ahaayeen beesh samaroon baa la kala jabiyo oo la dhaho behebel baa inay dhigtay wadada waa siyaasad baa ku dhex jirta ama kuwa jamhada baa dhigay oo waxay sugayeen gaadiid dawladeed inuu soo maro ama maamulka waa niman qudhigo dagaal bilaabay hadda oo jamhadii Awdal State of Somalia way bilowday halgankii marka dadkaas waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacantayna Allah ha u boga dhay ayaan leenahay waxba ka soo salagla halkaasi dawladda Soomaaliya wayba sheegtay kulli Somaliland inay waxay ku eedeyn doontaa dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in maamul loo dhisay halkaas oo wasiir gaashaandhigana waa hadlay wasiirka dekedahana waa hadlay dad badanna way ka hadleen in gobolkaasi hadda ay maartay ay ishu si weyn u hayso sidoo kale khiyaaray waxaan tageynaa furmaha hore og iyo deegaanada militariga Soomaaliya oo garab ka helaya difaacyada waqooyi bari of Soomaaliya iyo kii Somaliland inay foodas geliyeen xaalku ma sahlan
xaaladdu ma sahlan tijaaba socota tijaabadaas laba waa mid horta xasan sheekh maxamuud meesha wuxuu u tegey sidoo asaguba soo qoray page-kiisa uu ku daabacay facebooka wuxuu yidhi in aan aqoonsanno maamulkii rasmiga iyo caleemasaarkii madaxdii laga soo doortay waqooyi bari inaan horta dhammaystirno waa kow inaan dadka deegaanka la tashi samayno in aan samayno baxthi iyo dhulka sida uu yahay sida deegaanka iyo sida midnimada soomaaliya lagu raadin lahaa somaliland waxay tiri duulaan baa nagu soo socda cir iyo dhul ah ascaanood ma noqon kartaa goobta cir dhul iyo laga bilaabo lugta ee hargeysa lagu gelayo sidoo kale somaliland waxay ka dhawaajisay inay ciidamo turkiya joogaan ascaanood oo waxay la cabsadeenba ay leeyihiin turki baa jooga meesha diyaaradaa jooga turki ah satellite baa lasku ilaalinaya madaxweynaha satellite baa lagu ilaalinayaa bay dheheen oo lagu hagayaa oo xaaladiisa iyo amniga waxan waa la xaqiijiyey mar hore somaliland distancega ay u jirto halkaasi waxaa la sheegay meelo ka mid aha inay 90 kilomitr laascaanood jirto meesha ugu dhow ee laascaanood ciidanka somaliland u jiraan waa 90 kilomitr sida xogta lagu sheegay meelana way ka fogtahay waa 200 kilomitr laascaanoodna hargeysa waxay u jirtaa ilaa 240 baa lagu sheegay iyadana inay u jirto distancega ayadana ay u jirto marka meeshani xasan wuxuu rabaa inuu ka soo laabto meel ay somaliland rajabeeshay waxaa la yidhi 4 beri buu qabsaday inuu joogayo 4 beri way badan tahay madaxweyne waxaa la rabaa caawa intaad joogaysa aruurta inaad baxdo somaliland culays baad ku haysaa madaxweyne xasanow somaliland culays baad ku haysaa joogitaankaad culays buu yahay siyaasadeed oo waxaa la dhihi warar waxaad sheeganayseen awe baawarkii awe ciidankii awe muusigii quruxda badnaa wixii wada baraqdaya awe cagaha waaweynaa soo bandhigi jirteen haddiiba xasan 4 beri uu laascaanood kuleelkeeda dhaxarsanayo meesha waxba kuma haysaan somaliland ee noqonaysa xaqiiqda dhabta cabdiraxmaan cire hadalkiisii calaacal badan baa ku jiray in uu dowlado carbeed iyo dowlado badan oo muslimiin ah uu ay cadaadis badan saarayeen hadalkiisa ka cadday oo khatar uu ku jira xataa uu yidhi dagaal baana lagu soo qaadayaa ayadoo soomaaliya kaashanaysa buu yidhi saaxiibadeeda marka shacabku waa inay isdifaacaan oday qorigiisu waxaad moodaaba qorigiisu inuu naftiisa ka samaraan moodaa waxyaaba badan uu dhegta loogu sheegaad moodaa qorigiisu khalkhalba amin maskaxdiisa aad uma deganayn sidoo kale taliyihii ciidanka militariga somaliland furintu waa soo gaadhay waxaa suurtagala inuu dhaho ku dhardhaara ilaa laascaanood ninkii soo laabtan madaxan ka toganaya ninkan nimcaan yuusuf gaaxnuug waa nin ka soo jeeda beesha carab reerkiisu etoobiya degaan way ku yidhiin gudaha somaliland reerkiisu waa dadkan dacawaaley iyo ilaa maaragtay abubakar axmed iyo ilaa maaragtay laanqayrta iyo meelo badan bay daadsan yihiin oo dowlad deegaanka ay degan yihiin asna markiisa horeba dee etoobiya tababar ku soo qaatay marka hadduu dagaalka gala dhaho nimcaan asaga la soo qaban xaqiiqda dhabta sababta daxabada hadday dhacdo ciidankii gaadiidka watay ee ordayey asagu gaadhigu ku baxsan karaa ordayo keliya ma qaadqaadanona diyaaradaha dagaal geli doona sababta kooxdan waa jamhad gooni goosad ah kor iyo hoos baa laga bambayn khatar buu gelay nimcaan gaaxnuug hadduuna ka bixin furmaha hore waa laakiin asaga waxaa loo soo diray inuu ciidanka dagaal geliyo wixii kasoo kordha halkan kusoo gudbinaya khaaray barnaamij sii shargaray meel fogna gaarsiiya intaan midkan mid ku kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgeliyo